guud ahaanba ama ciidagalaha noqoto ama garxagsan noqoto deegaanadeenna ururo badan iyo xisbiyaa ka sharaxan oo qaarna doonayaan inay xisbiya noqdaan qaarna doonayaan inay ururo noqdaan waa war cad soo maaha maxaynu inagu haddaba kaga duwannahay go'aanka cuqaasheenna iyo suldaankeenna guud maxay go'aamiyeen waxay go'aamiyeen inaynu hal meel wada marro baaqoodiina waa dhegaysateen suldaanka guud iyo cuqaasha beelaha waa dhegaysateen go'aankoodu wuxuu ahaa in maanta la dhiso xisbiga waddani iyo musharaxiisa in la dhiso ayuu go'aankooda ahaa innagana go'aankeennu waa kaa haddaan iyaro tacliiqa ka bixiyo xildhibaan siciid cabdisalaan culay oo ka soo baxay xildhibaanada caasimadda hargeysa gaar ahaan weliba ka soo baxay oo laga doortay xisbiga in badan waxaa arkayseen isagoo ku shaqaynaya oo ku halgamaya oo wada in dalkan isbeddel ka dhaco oo isbeddelka qayb weyn oo muuqata ka ah taa waa ka dharagsantihiin oo uma baahna faallo uma baahna siciid dadkiisa reer hargeysa ee doortay siciid cabdisamed in badan buu la tashanayey wax weydiinayey isagu dadkaygaan la tashanayaa afka baarkiisa isaga may ahayn inuu taladii wanaagsanay dadkiisa iyo dadkii doortay la tashaday waxa caawa halkanay ka muuqataa oo si wanaagsan uga muuqataa gabagabadii u dambaysay siciid go'aankan siciid shakhsiyaddiisa umuu qaadanin raggii go'aanka shaqsinimo qaatay ee ka soo jeeday deegaankani halkay ka degeen waa ogtiin laakiin siciid markuu dadkiisa la tashaday halkay u badan yihiin iyo halkay doonayaanna uu arkay ayuu go'aan ka qaatay inuu ku biiro isbeddelka xisbiga waddani oo uu dhiso xisbiga waddani iyo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi marka go'aan qof dadkiisa la tashaday oo wax weydiiyey hadduu jiro oo xisbi kale ka soo baxay waa siciid cabdisamed culay waxaa kaloo aan caawa uga faa'iidaysanayaa dadka halkan fadhiya xaafad ahaan waxay u badan yihiin deegaan bay u badan yihiin reer hargeysa ayay u badan yihiin deegaanka hargeysa iyo degmada sallaxley iyo degaamo badan ayay u badan yihiin dadka halkan degan dadka halkan caawa xayga ku ah innaga haddaynu nahay deegaanka beelaha guud ahaanba ama ciidagalaha noqoto ama garxagsan noqoto deegaanadeenna ururo badan iyo xisbiyaa ka sharaxan oo qaarna doonayaan inay xisbiya noqdaan qaarna doonayaan inay ururo noqdaan waa war cad soo maaha maxaynu inagu haddaba kaga duwannahay go'aanka cuqaasheenna iyo suldaankeenna guud maxay go'aamiyeen waxay go'aamiyeen inaynu hal meel wada marro baaqoodiina waa dhegaysateen suldaanka guud iyo cuqaasha beelaha waa dhegaysateen go'aankoodu wuxuu ahaa in maanta la dhiso xisbiga waddani iyo musharaxiisa in la dhiso ayuu go'aankooda ahaa innagana go'aankeennu kaa weeye maanta codkeennu hal meel buu marayaa markaasaynu qiimo iyo tixgelin labadaba yeelanayna